bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee baadidoon oo aad toddobaadkiiba mar uga barateen TV-ga qaranka Soomaaliyeed. barnaamijka toddobaadkani waxaan kusoo qaadan doonaa waxqabadka ururka hidde iyo dhaqan ee xaruntiisu tahay magaalada Maalmo ee wadanka Sweden. وهاجاك ودادياشا برنامجك حذيفي يا سهرة طبعا وحا كما قنو كليا ان غيبك كمدا هدي دقنكي كربنتي كورتي باكوردي عمامدي اي ولبا وحيابا كلو ادو فربضان ايا هاريرين حتى كوشي اللي يقاني داي دقن ururka hidde iyo dhaqan waxaa la aas-aasay bartamihii sagaashameeyadii waana urur u guntaday in uu ilaaliyo dhaqankii suubanaa ee Soomaalida si aanu wax badan uga ogaano waxqabadka ururkan waxay nagu qaadatay in aan maalmo kooban oo booqasho ah ku joogno magaalada Maalmo oo ah xarunta ururkan. aniga iyo Sahro deegaanada aan ku kala noolayn aad ay u kala fogaayeen waxaana ay ahayd safar dheer sidii aan ku soo gaari lahayn magaalada Maalmo ee dalka Sweden inkasta oo aan saacado isku dhow aan soo gaarnay xarunta ama boostejada tareenada laga raaco ee magaalada Maalmo halkaas oo aan ku wada balansanayn anigii Sahro deetano aan halkaas ka sii raacnay. annaga qudheenu muddo ayaa isku keena dambeysay walow ay hawsha warbaahinta gaar ahaan TV-ga shaqo wadaag ka ahayn hase yeeshee u kuurgelidda barnaamijkan hidde iyo dhaqan ayaa suurto geliyay in aanu is aragno. waxa iga gunaanada geed adduunyaday gobol u qaado hablo weerar geli kara hablo aad ayay u dhibadneyd in qurbaha lagu soo bandhigo ama lagu muujiyo hidaha iyo dhaqankeena haddana sanadihii la soo dhaafay waxa aad u soo xoogaysanayay in qofka Soomaaliga ahi uu ku faano Soomaalinimadiisa dhaqankiisa iyo sharaftiisa iyo calankiisaba. waxa aad daawanaysaan muuqaalkaasi quruxda badan leh oo ka tarjumaya qiimaha dhaqankeena uu leeyahay. waa wiilkii iyo gabadhii aqalkii ayaa laga dhisay magaalada Maalmo bartamaheeda dad aad u fara badan ayaa u soo daawasho tagay. waa ka bilicda iyo muuqaalka quruxda badan leh ee dhaayihiinu ay qabanayaan bal ku uldoogsada oo ku raaxaysta qaabka ay wax u dhacayaan. أحدي كوب مريان عليجيجو نكسكا ودكا بالدعي أدون سكلا تجسو موجا سوموجا نكسكا ودكا بالدعي أدون سكلا تجسو موجا
awad male naftayduye markan urkahooyaday haddii aanay dabaylurin awad male naftayduye markan urkahooyaday ifka uga soo baxay anigoo nafacbaran nacawdiisa udugale keegu anqariyo alligaygo markii Soomaali la sheegiyo sinjiga culus saldaana adag yaadi markii heerka saara la dhigay ilaa yasoodnihi markii safka saara la dhigay calanka la saarayo ay ciidiyo maqnaayn cadaankii la ceeriyo caraadii tageen Soomaali tashaahatayo ay talaaba gaashay taban taabiyadii caalanka aniga maanta siida calanka Soomaali caabahaashu idiin wadaa rag baa idihiidiyo hoobigay bixiyey. haddaba waa maxay ururka hiddo iyo dhaqan muxuuse qabtaa? بسم الله الرحمن الرحيم urur kan hidiga dhaqan waxa la asaasay 1995 waqti hadda laga joogo muddo dheer waxaan ku asaasnay magaaladan maalmo Soomaalidu markaa ma badnayn laakiin waxaan istusnay in maadaama dad badan oo qaxooti halkan imaanayeen ay jirto baahi ah in dadkii ay Soomaalida ay is urursadaan oo ay helaan meel ay wax isku dhaafsadaan oo ay ku bartaan wadankan cusub sidii loogu noolaan lahaa ayay ahayd ujeedada ugu weyn dadkuna ma badnayn markaas. magacan waxaan u qaadanay waxay ahayd hidiga dhaqan waa la qaadan karaa magacyo kale oo ama ah Ingiriis ama ah Swedish laakiin waxaas niri magac Soomaali ah si Soomaalinimada loo barto magaca hidiga dhaqanna waa wax dhaqankii Soomaalida iyo ka turjumaya anoo laftigay waagi waa iska jeclaa waxaan dhaqanka ah oo anoo yar yaan marka qaarkood waxaan fiirsan jiray ciyaaraha iyo dad guriga imaan jiro ciyaari jiray sawirro qaarkood waa hayaanoo anoo ku dhex jiro fiirsanay marka waa waxaan iska qabay weligay macnaha dhaqanka iyo hidaha Soomaaliya inay yihiin wax fiican midda kale maadaama xilliyadaas lagu jiray xilliyo dagaal oo dhibaatooyin badan Soomaaliya ka jireen waxaan arkaynay waxaan dhaqanka inuu yahay wax dhexdhexaad oo aan cidna lahayn weli ma arkin macnaha dad isku haysta Soomaaliya wax kasta isku qabsatay weli ma arkin dad isku haysta ciyaarta anaa iskale isku dilay geeliyo la isku dilay iyo waxyaalo kale iyo xoolo iyo wal kala qad laakiin dhaqanka waxaan arkaynay wax maaragtay asal ah oo Soomaalidu leedahay ah inay ku faanto aan rabnay inaan soo celinno inkasta ha qaadato. halkani waa magaalada Maalmo ee wadanka Sweden. xaruntani aan afaafkeeda taaganahay waa xarunta ururka hiddo iyo dhaqan oo aanu rabno in aanu wax badan ka ogaano waxyaabaha ay qabtaan inagoo gudahana u sii geli doono isla markaana idiin soo gudbin doono waxyaabaha ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan. runsi wacan afkooda ugu hadli kara xilli galab ah oo aan ku booqannay xarunta hiddo iyo dhaqan ayaa indhaheenna waxay qabteen carruurtan oo dharka hiddihii dhaqankeenna xiran xilligaas oo ay ku jireen diyaargarow ama laga barayay ciyaaro cusub oo ka mid ah ciyaaraha laga ciyaaro waddankeenna hooyo ee Soomaaliya.
noocyo kala duwan oo cayaaro ah ayaa la qabtaa waxaana qayb ka qaata caruur isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana sidoo kale jira qaar kale oo da' waaweyn ah. magaalada maalmo waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan waxaana barnaamijyada hidaha iyo dhaqanka barbar socda barnaamijyo kala duwan sida isboortiga waxaana jira kooxo waaweyn oo ka diiwaan gashan kooxaha gobolka Maalmo kuwaasoo la ciyaara dadka kale ajaanibta ah iyo dadka wadankan u dhashay ee Swedishka oo laba koox haysanaa koox oo aada iyo kooxda B iyo koox yar ilmo yar hadda aan bilaabnay oo waxaan aragnay koox oo Soomaali 2008 ugu dambeysay oo koox Soomaali jirtay Maalmo markaas dhalinyarada imaatay oo dhahday anagana suuq hadda oo training oo hidhi dhaqan oo shidan oo maxaan rabnaa anaga taa koox balooni inaan dhisno aasno soo sidii kooxda lagu aas haddana kooxda waa aad meel fiican hadda mar haysa hadda kooxda xaruntani waxaa soo booqday madax iyo marti sharaf kale oo fara badan waxaana ka mid ah boqorka dalka Sweden. iminka waxaan gudaha u soo galnay xarunta ururka hidaha iyo dhaqan waxaanu ku aragnay taariikh la ilaaway sawirro iyo waliba muuqaalo cajiib ah xarunta markaa gudaha aad u soo gasho waxaad arkaysaa arrimo runtii xusuus gaar ay kugu reeba sawirro qurux badan ayaa halkan ka muuqda aan ku horeeyo sawirkan waa booliis waa gabdhihii Soomaaliyeed oo booliiska ahaa dabcan oo 1974 hayo warsam waa saa u sheegto waxa weeye masuuradan waa masuur ku saabsan waagii intii nabadu jirtay Soomaaliya markii qaranka la ahaa oo waxyaalo badan oo dad badan ay ilaaween aan la xusuusan مثلا هذا تاشيكتي waxa weeye gabdho police ahaa ama traffic ahaa xilligaas dawladdu ay jirtay waa 24 weeye sawirkan wuxuu ku tusayaa waxbarashada carruurta heerkay taagneed sida wax loo bari jiray waa 73 sawirkan quruxda badan la dabcan sawirkan waxa weeye Muqdisho 1847 weeye Muqdisho sawirka say u ekeed waagaas xilligan dabcan waxa u malanayaa in area-da xamarweyne shangaan dhinacaas intaas kaliya waxa xusid mudan haddii dib ugu noqono sawir kale oo ka fog taariikhdiisa jira waa halkan ka muuqda oo kaartadii Muqdisho ah waa 1460kii 1460 Muqdisho say u ekeed waa gartay laakiin fartan ku qoran far Latin Latin way Latin ku qoran waqtigaas la sameeyay Talyaani ku qoran marka waxyaalaha badana lumayo badana anagu aan ururino aan raadino si dadka taariikhda uga lumin waa lagu talagalay miyaad sawirkan wuxuu ahaa buug baan ka soo masawray loogu talagalay dadka touristaha ah wadanka iimaanaya waxyaalaha looga baahan yahay waxay sameyn karaan iyo waxay sameyn karin macnaha waa xoogaa xayisiin waa xamrooyin iyo shagaani dhinacaas lagu tusay laakiin muhiimaddu waxay ahayd sharcigi jiray qofkii iimaanaya wadanka aad waxa sawirka hore waxa weeye waa 64 waa heerka aan ka taagnayn caafimaadka waa qof dumar oo haween oo uur leh oo la baarayo caafimaadkeeda macnaha waxay ku tusinaysaa waagaas xitaa inaan lahayn qaabka caafimaadkeena uu fiicnaa 64 weeye kasokow kaartada 1460kii kaartadii magaalada Muqdisho ama qaabkii Muqdisho ay ahayd haddana waxaan helnay kaarta ka qurux badan ama ka dambeysay oo la sameeyay 8meeyadii taa oo ku tusaysa haddii aad magaalada Muqdisho aad imaado nambarada aqalada jidadka iyo waliba goobaha muhiimka ah iyada oo si sahal ah aad ku tagi karto waana tan kaartadan waa 86dii yaa la sameeyay marka waa xamar iyo xaafadaheeda say u qaybsanaayeen waxa halkan kaaga muuqda midalan xaafadaha sida wadajir oo kale waa bari hodan hawlwadaag
xamar jajab xamar weyne shangaani cabdicasiis boondheere kaaraan yaaqshiid halkaana waa intii dhexe oo centerka aheed oo la weyneeyey meeshan hoose waxaa ku arkaysaa marka haddaa rabtid xafiisyada dowladda nambaray leeyihiin aa ku helaysid safaaradaha haddaa rabtid nambar baa ku helaysaa sida yurubtan looga helaba masaajidadii haddaa rabtid waa sidoo kale hoteelada iyo meelaha wax laga cuno meelaha kaloo lagu raaxaysto bangiyada suuqyada waaweyn iyo kuwa yaryarba meelaha garaashada baabuurka la dhigto hay-adaha safarka haddaa u baahan tahay isbitaalada waa ku yaalaan meelaha kale oo fiican oo wax ku taraya waxaasoo dhan adoon ku wareerin gurigaada joogaa fiirinaysaa waana helaysaa macnaha saas u nidaamsanaa xamar wahagaag tan waa Soomaalita waa shirkadii caanka ahayd waxyaabihii runtii aanu ku faani jirnay shirkadan waa shirkad aad u weyn bay ahayd 70-meeyadii oo Soomaaliya iyo Talyaani ka dhaxaysay waa shirkad waxay caan magaceeda aad u weyn yahay sida hadda kuwan Jakito kala gaartay laakiin badanaa hadda la ilaawo wadama saa uma shaqeyso marka waxaan u soo qaadanay in waxyaalaha waaweyn oo fiican aan ku faani jirnay in dib loo soo celiyo way ujeedadan u ururnaa sawiradan ugu dhijinaa halkan qaaliga u tusnaa dadka waxaanu ku guda jirnaa xarunta hidde iyo dhaqan halkani aan taagannahay waa beer ay ugu talagaleen in ay ku abuuraan qudaaro kala duwan waxaan la joognaa warsame oo isagu nooga sheekeen doono warsame waa maxay beerahan maxaa ku abuurteen qaybtan waa qaybta beeraha waxaan ku abuuray qudaar kala duwan waxaan ku abuuray bataati waxaan ku abuuray basbaas waxaan ku abuuray waxyaalahan kale cunada lagu carfiyo marka waa badan yihiin yaanya ku jirta marka meeshu ma weyna laakiin saddexdan qayboodba haddii la isku daro haddaan tusaale kuu soo qaado dhinaca kale sanadkii hore waxaa nooga soo baxay bataati dhan 25 kiilo marka waa meel yar laakiin waxtar weyn leh oo ujeedaduna ay tahay in bal dhinaca beeraha laftigooda dadka ay ku dhiiradaanoo sidii Soomaaliya la ahaan jiro kale ay noqoto wax dad inkastoo Soomaalidu lagu tilmaamo in ay tahay xoolo dhaqato beer falato iyo xoogsato haddana in la dhaqdo shinnida oo malabka laga soo saaro waxaa si weyn looga yaqaanaa qaar ka mida gobolada dalkeena sida Baay iyo Bakool haddana halkani waxaanu ku aragnay shinnidii oo la dhaqayo malabna laga soo saarayo laga yaabee dad badan inay isweydiinayaan
labiska aan wadano markaad aragtaan inaan nahay dad satellite-ka ku duulaya ama dad howlo kale u socdo oo bayloodyo ah ama dhaqaatiir howl qalina fulinaysa laakiin way ka duwan tahay saar halkeeba u soconaa waxaan u soconaa meel ay shini ku aruursan tahay oo aan rabno bal in aan wax ka soo ogaano qaabka ay wax u sameeyaan iyo sida ay u socoto hawsha. wahiib waa khabiir aan qaabilsan dhinaca shinida waxaana uu shini uu ku beeraa ama maxay ahayd uu dhaqaa wadankii Sweden magaalada Malmo wahiib halkeeba u soconaa hadda dhar baad noo gelisay maxaan sameynaa dharka macnihiisu muxuu yahay hadda waxaan u soconaa meesha aan shinida aan ku abuurayo oo aan dhignay meesha shinidaas dharkana waxa weeyaan inay ka celiso ama difaaci ku noqoto si shinidu haddii ay aggressive noqoto ama ay doonayso inay kusoo weerarto si aysan kusoo gelin ama aysan wax ku yeelin aad iyo aad wata marka imiseen oo jirta hadda ilaa imiseen u soconaynaa halkan xarunta marka halkan aan taaganahay waxaan u soconaynaa ilaa 2 daqiiqadood guriga aan deganahay hadda gadaashiisa ayaan dhignay shinida aan ku abuurnaa wata marka meesha tagna maxana lagaga baahan yahay waxa laga baahan yahay marka hore marka shinida aad u tagasid inaad aad wadato dharkii aad iskaga celin lahayd haddii ay kusoo weerarto iyo qalab kale oo aan ku furo lahayn ama aan ku eegi lahayn shinidii si inay waxyaalo gaadheen ama inay hawshoodii ay fuliyeen oo ay shinidii malabkii ay dhaleen halka aan taaganahay waa goobtii shinida hadda ayaan dhaqaaqaynaa bal wixii aan kala kulanno bal aan aragno waxaan kori doonaa jaranjaradan si aan u galno meesha shinidu taalo oo aan u soo ogaano halka ay exactly ku sameynayso malabka
alxamdulilah si nabadgelyo ah ayaan kusoo fuulnay meeshii fogeyd runtii waa arrin cajiib waa markii igu horreysay weligay ma arag waxaan oo kale aad iyo aad halkan aan joogno ayay shinnida ku jirtaa miyaa wiib ها حقنا كجرتا haya maadaama ay meeshani tahay guri dushiis oo ay dabaluun iska badan yihiin saas la ajligeed xarig baan ku xidhaa dhagaxaanna waan saaraa si aysan dabayshu u qaadin baalka aan ka ilaalinaya dabaysha ama alwaax roobka iyo barafka iyo aad iyo aad marka bal aan aragna bal wixii ka soo bax meeshaan cabdiraxmaan xabsanaysaa aad iyo aad shinni aad baan uga baqi jiray inaad dagaalamay sidaa lagu maleeyaa bismillaah way bilaabeen soo ma adig ka fogow marka saaxiibo haya maadaama hadda inagu cusub tahay shinnidu haya u malayn maayo ilaa iyo kor inay ay wax ku abuurmeen laakiin inta hoose waan ka fiirin doonaa insha allah waaw waa shinnidii maxaad samaynaysaa hadda waxaan fududaynayaa shinnidu marka ay wax dhasho faxka ay samayso ama seelka ay samayso wuxuu ku dhagaa derbiyada si aan ugu jirciyo ama si aan u soo bixiyo hadda waad aragtaa hadda waxaan ka fududaynayaa si ay dhinacii derbiga ku dhegay ay ka fududaato ama ay ka fuqdo shinnida inay isku ururto micnaha shinnida ururkeeda ma aha laakiin fakiskii ay samaysay guryihii ay samaysay inay derbiga meesha u gaadhaa markaas aysan aniga ii fududaato la bixiisa ayaan ka fududaynayaa hadda tanaan fududeeyey tanaan soo bixin doonaa waa arrin la yaab leh واو عجيب ملب كوه بوحة ملب ما شاء الله ملب كبوح هذه marka ay malabka samayso ay buuxsamo way xidhaa selka laakiin kuwan hadda waliba ku sameynayaan hawl baa ku socota ilama uu buuxsamo ka bacdina way xidhaa selka way xidhaa afka ka xidhaa hadda marka qaybtan way buuxdaa waana xidhay boqorkii meeday boqoradda si dheel ah laguma arko laakiin waa in suxuuntan aan dhigay meesha xabad loo eegaa oo laga baadhaa meesha ay joogto lama garan karo intana way soo socotaa ma ogtahay laakiin waa in la baadhaa oo la eegaa waxaan u malaynayaa inaad u aragtay saxankan aan shabaga ah aan saaray oo u dhaxeeya kan iyo ka kare saxaarada labaad waxaan micnaheedu tahay boqoraddu maadaama ay ka weyn tahay shinnida kale shinnidu waa aragtaa way kasoo dustaa shabaga laakiin maadaama ay boqoraddu ay weyn tahay si aysan ugu soo dusin oo ay ku ekaato halkaas oo aan ugu talagalay inay ku dhasho ugxanteeda ay dhigto saxaarada labaad ee aysan soo gaadhi karaynin laakiin shinnidu kale ay soo gaadhi karto waxay ku sameeyeen malabkii taasana malabka saafiga ah aan ka heli karnaa tanse waxaan ku heli karnaa malab ugxantii baa ku jirta marka inta badan lama qaato ugxanteeda waa loo daayaa iyo malabka ku jiraba malab saafi hadda rabto boqorada ugxanteeda waa la iska ilaaliyaa marka tan kale hadda iyo boqoradu ma soo gaadhi karto ugxanna kuma dhali karto laakiin shinnidu way iman kartaa waana ku samayn karaan malab
shinida qaarkood ma laga yaabaa inay meesha ka tagaan macquul maaha shinnidu sideeduba waxaa u socdaan koox bay u socdaan ay ku wada nool yihiin qofkii ka tagaa waxaan isku gartaan urgooniya gruubkii kasta oo meel ku nool urgooniya ay leeyihiin haddii waa hal saxan waay miya hal saxaarad waay waxaa la yidhahaa encube baa la yidhahdaa waa saxaarad yacni shinnida sideedaba ma wareegi karto oo shinni kale uma tegi karaan waayo isku ur maaha isku kooxna maaha marka qolo walba meesheeda joogtaa meeshay doonaan ay ka soo ugaarsanayaan ama ubaxii ay fuuli lahaayeen laba shinni ka socota laba saxaaradood way isku iman karaan oo ubaxaas way ka cuni karaan waxay doonayaan laakiin markii ay noqonayaan wax hoygooday ku noqdaan hoy kale ma tagaan aada u mahadsantahay meeqa bilowda ku dhammayn kartaa marka malab ku soo saari kartaa shinnida sideedaba ah sanadkii 4 jeer baa laga miiraa malabka laakiin isuuna waxay ku xirantahay inta badan kulbas weedarku siduu yahay hadduu weedarku example xilliga winter oo kale lama xisaabin karo waayo wax ubaxa ama wax ay geeda oo ay fruit leh oo midho leh ay ka soo qaadan karto nectarka ama pollenka maba jiran under summer under winterka micnaheedu waxa waaye inaysan markaas malab laga miiri karin aan laga miiri karaynin xilliyada ay roobka jiraan dabalo fara badan jiraan taasna lama xisaabin karayo gudaha ay iska fadhiistaan hadda qaar ka mid ah shinnidii duulduulay maxaan ku sameyn kuwaas qalab faamiya ayaga iska tagi doona iska dhaaf waa ku soo laabanaya ha markay banaanka baxaan ayaga yaqaan meesha ku soo laaban lahaayeen meesha ka soo geli lahaa waalka marka halkan ay ka soo golaan ha okay halkaas ay ka soo golaan okay maarta waxba way duulduulayaan halkan xagna albaabkooda ah ha okay wataas maarta subaxdii ha okay waa tahay markaan degashadii ayaana sugaysa aniga waxaa iiga daran xudeyfi oo isagu la yaaban siduu u degi lahaa marka hore isagaana noo bilaabi doono wahiib ayaa iga horeynaya siduu noo celceliyo waa gartay isagaa sugaynaa marka wiib marka uu dhammeeyay xirxirtaankii shinnida meeshii ay ku jirtay sharafeeno taa anaga laftarkeena in wahiib maxaad oo tusaale uu u noqdo isaga iyo tiimka la shaqeynaya ururka hidiyo dhaqanba inay tusaale u noqdaan soomaalida kale ee qurbaa ku nool wahiib hawshan ma xirfad ahaana u baratay goormee kugu dhalatay hawshan waxay igu dhalatay 3 sano ka hor haddii aan dib u laabto 2009 waxaan ka shaqeynayay project ay ururku waday oo la yidhaahdo ban e stan oo ah macnaheedu tahay Soomaali ahaan caruurta ku nool magaalada dhaqanka magaalada marka ay yimaadaan siday tahay iyo siday u dhaqmi lahaayeen dadka kaleba projectkaasi waxaan ku salaysnaa caruur iyo dad waaweyn kabacdi waxay noqotay miftaax ayuu noo noqday in abuurku uu yahay waxa ilmaha iyo dadka waaweynba ay xiiseeyaan abuurku markuu bilaabay kabacdi wuxuu keenay midho yaanyo keenay digir buu keenay bataati buu keenay wixii ka abuurmay oo dhan dadka waaweyn unbaa isticmaalaya moogtahay kabacdi waxaan ku fikirnay ilmahan yaryar maanta hadday nacnac tagaan ama shaqada soo iibsadaan wax oo naajir ah oo dabiici ah ma aha waxaan ku fikirnay wax dabiici ah
ilmahaasi ay cuni karaan oo macaan ah. taasina waxay igu kaliftay inaan malabka aan ku fikirno. kabacdi waxaan qaatay waxbarasho sidii shinnida loo dhaqaaleyn lahaa. dhaqaalaha shinnida sida loo dhaqaaleeyo haddii aad barato malabkeedna waad helito. ilaa iyo 2010 waxaan ka helay in ku dhawaad 85-90 kiilo oo malab ah. sidee yeeshaa marka malabkaas oo kale? maadaama waddanka joogno sharciya ayaa jira maogtahay haddii addoonsan iibisid marka sharciyadaasna anagu run ahaan ma lihin. laakiin markii aan soo miirnay wixii ka qayb gala ama marti nooga ah ururka ama hawlihiisa fuliya ayaa aan u kala qaadanay xooga casriga laga tagay qabiil dashina cunidine. caruurtani iyo dhallinyaradani waxaa sidoo kale marmarka qaar ay la dabaaldega qaar ka mida fanaaniinta waddanka Soomaaliya kuwaas oo ku nool qaar ka mida qurbaha. Gobile sargado, ablaga soo gaariyo, inta anga gobilo, gobile gabariya ninke, gobile gaariya ninke, gadaha loo fariisayo, ablaga soo gaariyo, waxaan gobile tuma, anigu gobile tuma, ugu waxaa sargado, markay goobtiisa tahay, haddaan gobile la tumin, gabdhaha lama guursadeen, gobile guri lama helay. The other time
weli barnaamijkii baadidoon ayaad daawanayseen bal markan qayb ka mid a barnaamijkii ayaanu kusii guda jirnaa bal markanna waxaanu soo qaadan doonaa qayb ka mid a heesihii hiddaha iyo dhaqanka soomaalida lagu yaqiino saaray waxyaabaha aan runtii taariikhdale markaan keedka aan baaray inta aan ku guda jirno booqashada magaalada maalmo aan ku imaanay waxaa ka mid ah booqasho ay ku imaadeen qaar ka mid a fanaaniinta sida gabadha la yirahdo Shamsa Food iyo Nicola Mandela oo runtii wacdara la yaab leh ka dhigay xafladii ciid weyneedii hore heesta la dhaho bati bati weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayno ururka hidde iyo dhaqan haatan waxaa garabkayga fadhiya qaar ka mida caruurta oo iyaguna raba in ay barnaamijyo kala gaar ah ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan ayagoo marka horena ku bilaabaya magacooda magacaaga maalin daahir faarax xagee ku dhalatay Sweden meeqa sanaa jirtaa 12 adiga magacaaga maalin daahir faarax muna meeqa sanaa jirtaa 12 xagee ku dhalatay Sweden magacaaga adiga Samiro meeqa sanaa jirtaa 9 sanaa jirtaa xagee ku dhalatay Samiro Sweden weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aanu ku wareysanayna qaar ka mid ah caruurtii adiga magacaaga Ikraam Cabdulqaadir Ikraan xagee ku dhalatay Sweden maasha Allah meeqa sanaa jirtaa Ikraan 12 waa gartay magacaaga Muniira Maxamed Yuusuf Muniira meeqa sanaa jirtaa 12 sano xagee ku dhalatay Sweden magacaaga adigana Saamiya meeqa sanaa jirtaa 7 xagee ku dhalatay Sweden daawadayaal waa ujeedaan caruurtan Soomaaliyeed waxay ku dhasheen kulligood wadanka Sweden waxayna ku hadlayaan af Soomaali fiican sheeko xariir noo sheeg bal sheekada noo hayso maalin maalmaha ka mid ah ayaa cigaal shidaad saaxday geed hoostiisa marka bahala afkiisa iyo sankiisa meel dhexeesa martay intuu soo kaxay uu qeyliyay hadhow nin iyo qaraabiyihiina agtiisa soo maray wuxuu ku dhahay maxaa u qeylinaysaa hadhow wuxuu dhahay bahala afkayga iyo sankayga meel dhexeesa martay wuxuu dhahay bahalka maxay ahayd cigaashidaad wuxuu ku jawaabay subxaanii ahayd hadhowna ninkii uu yaabay wuxuu dhahay subxaanyada wax ma cunto hadhow cigaashidaad wuxuu dhahay waa ogahay laakiin waxaa ka baqayaa afkayga iyo sankayga meel dhexeysa inay noqoto xaalaq mareen maasha Allah halkaasay ku dhamaatay sheekada xaggaasay ku dhamaatay runtii waa sheeko oo ma aragtay xiiso leh aad ayaan idinkaga mahad celinayaa runtii waa ujeedaan daawadayaal caruurta Soomaaliya sida sheekooyinka xiriirta leh ay uga sheekeynayaan Soomaaliyeed tooso iskutiisadayey habakiina taageera weligii ababinta iyo barbaarinta caruurta Soomaaliyeed soo bandhigida dhaqankeena qiimaha badan leh bal markaana aan dib u milicsano noocyo kale oo ka mid ah cayaaraha laga cayaaro dalkeena hooyo
aniga waxaan qaabilsanahay dhanka dhaqanka marka dan ayadana wax yar kaaga soo qaato waxyaalaha ay qabtaan waxaa ka mid ah ciyaaraha dhaqanka Soomaaliyeed oo kala duwan sida sharax goobiley dhaanto baraambur ciyaar aad u fara badan waaye iyo waxyaabo sheeko xariirooyin ilmaha la baro filimaan ay subiyaan oo ah filim Soomaali sidii afka Soomaaliga ugu hagaago ilmihii iyo dhallinyaradiiba xilliyada qaar waxaa la soo bandhigaa oo dadka ajaanibta ah iyo Soomaalida kaleba ay wada daawadaan qaybo ka mid ah noocyada labiska ama dharka hidaha dhaqanka ama nooc waliba oo Soomaalidu ay qaadato oo dharkooda ah oo ay dhalinyaro huwani dharkaasi ay ku soo bandhigaan fagaara ku yaala magaalada Maalmo.
tanina waa qayb kale oo carruurta yaryar ah kuwaasoo xiran qaybo ka mid ah dharka soomaalidu inta badan ay u badan tahay sida dharka hidihii dhaqanka dhar laga sameeye calankeenna iyo noocyo kale carruurtaas oo iyaguna ku soo bandhigaya fagaaro ay ku sugan yihiin dad isugu jira soomaali iyo ajaanib kale. noogu muhiimsanaa oo munaasabada ugu weyn sanadkii hore aan samayn waa kowdii luulyo oo aan weligan ma samayn sanadkii hore noogu horreysay waxayna ahayd wax markaa nagu cusub oo mudday soo jiitamaysa kolleyba laakiin waa rabnay waa jecleen weligan inaan samayno laakiin waxay ahayd markii koowaad waxaan ku guulaysan inaan soo bandhigno fanaaniin u yeerno cayaarahii hidaha dhaqanka la soo bandhigo oo tan kaloo usii yaabka bandayd ahayd in calankii soomaaliya ay carruur yar ay suraan oo haystii calankan meesha laga saaro dadka dhan wada jooga. daawadayaal intaasi ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu kusoo qaadanaynay waxqabadka ururka hidde iyo dhaqan oo xaruntiisu tahay magaalada Maalmo ee wadanka Sweden. barnaamijka si wada jirahay waxaa idinkugu soo tabinayay Saara Maxamuud Cali Susaan iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudeyfi. dhanka muuqaalka quruxda badan leh keedka iyo waliba sawirada cajiibka leh waxaa gacan naga siiyay saaxiibkeena qaaliga Farax Yaasiin Ismaan. guud ahaan anagoo isku wada duuban waxaan idin leenahay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo. وعيو بنان هودي وصاص يو بري بريو حرقيتيو دري تماميو عمر باليدي للبدر كون كدي بريان كلام مقنعيو والدي بصاصي شيخي من أبد بار شيخي من أبد بار